السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan ilaacada shabakada caalamiga Somaliland Live Media toddobaadkan waxa barnaamijkeena ugu martiya mar kale Abwaan Dhako Abwaan waxa toddobaadkan aad inoo soo diyaarisay maansooyin ka turjumaya iyo sidoo kale gabayo xuska maanta 18 May sidoo kale taariikhdii loo soo maray Somaliland toddobaadkan kula wadaagaan taageerayaashaada iyo taageerayaasha shabakada caalamiga Somaliland Live Media ama Somaliland Live labadaba ku soo dhawow bismillaahir rahmaanir rahiim marka hore waxaan salaamayaa Somaliland Live Media iyo taageerayaasheeda mar labaadka waxaan salaamayaa ummadda reer Somaliland meel kasto ay joogaan waxaan leeyahay ku ciida cid wanaagsan halkan waxaan idinku dubayaa maaso ku saabsan 18 May waxa la yiraahdaa magaceed tiriyay May bay ahayd wuxuu yiri ummad yahay maqloobisan May la yiri inta maalin waan maskab iyo xornimo magaca hesheen mawla kuugu daray aan idin marsi maqalkiina fura May ee marka hore jaleec burcaan maalintii iyadoo macangagi wuxuu muruq lahaa may hub helay nagu manaxanadii mowdka u banbaxay maraan la iska filin sida mowjadaha mintaxaabiyeen magaceed tiriyay May bay ahayd meesha saadku yaalka ma maaranee ma dheera iyo markaan cadaad lay mulkiyina magaceed tiriyay May bay ahayd hargeysadaan markii mirta la isku helay military cadkii maryahi iyo direys magmaguujiyeen madaxdii fadhiday kolay Morgan tahay madaxay banaan midba meel ka kuday magaceed tiriyay May bay ahayd maalin 91 ee dhiinkan mudan inaydaan mar kale mugdigii galeyn burcaan maalinta dhab u muujisay magaceed tiriyay May bay ahayd ina mowqifka ka midaysantiin dastuurkii marka cod ku muujisayna magaceed tiriyay May bay ahayd inta soo meselo midna been ahayn amarakatiin markaan hoos u dayo marmar baan ilaa bisana malaha moorada sidee Mayland la baxa garo maxamedow waxa kamid ah maalmo caanaho adduunyadan maliyeen muslim iyo kufaar maqrib laga maqlo maqshir laga ogyahay magaceed tiriyay waa maalintii arladoo mugdiya dadku yahay madluun dhiig miiratiya cadow maadharihi ku dhex meerayo maal haysta iyo ninkii magacle iyo murtikii tirshaba intuu soo marsaday maato iyo dumar mirmirkii ka hadhay intay mayracdaan halkii aad martaba meydkoodu yaal mirta dhexe guryaha maqsinada jabsho sheekh muumin oo midna aan samayn marwadu qabiya macaanay walaal iyo mudantu dhalay laga meersado isna madaxago iyagana malkada qasab lagu marsado iyadoo meel kastaba xamar maamusho dhulku yahay mubaax oo mareenada iyo militariga badan booliis milyuun maryamadow darwiish guul wada maraan midqayeynayaan oo miigag iyo maraakiib dagaal madaafiicda culus ee ay muush ka tahay tignikana maliyaan magaceed tiriyay waa maalintii rag mujaahido miigan oo mintidi miinooyinkii madax u galay waa maalintii nin maamulo geesi madhariya mar la yahay midaan hayqoon oo maanka iyo maskaxdiisu tahay sida lay mirtiro aan murqayga iyo tusay mawjado mindidu sitayna kamaro sidaan kaga muday wadnaha magaceed tiriyay waa maalintii madaxeeda xamar minta loo rogay magacay lahayd ifka laga masaxay waa maalintii macaanka ay cuneen malabkay jaqeen maal waxay bulshada ka maroojiyeen aan murta ugu daraan dacar musayri magaceed tiriyay waa maalintii daxal maara iyo madowgii bulshada maskaxdooda galay laga maydhay ee mudaniya marwaba laga dhigay mabsuud jihaad maalintii uu ugu mudnaa aan murkas iyo calanna May bay ahayd calankeenan mudan midabada ku yaal mara khaliyo oo meel laga luliyo macnali in ninkii moodayo masaladu watiya miisaanka culus aan muujiyo midmiriga ho marka hore casaan waa midabka dhiig murugiya dagaal iyo holac la maro ku muquune cadow arladana mulkiya marka xiga cadaan nabaday macaan xidigta madow maydaan fahmini midabadan isgalay marbay qurux u tahay macnaheeda kale muddo badan shantan muxubada u qabay macdan iga luntiya dahab iga maqnaa shantan moodi jiray markaan soo hubsaday inay maar ahayd mugdi inaan ka dhigay ayay maragu tahay midka kalena waa midab dooguhu milicsiga indhuhu ay muhanayaan marka qori la rida meel la iska dhigo miidawday bulshadu nolol muujiyaan madarkooda iyo midhaho bixiya mashaqada nimcada sina laga metelay murtiqaaliina ku malaasanto macbuud waa ilaah maxamedna rasuul mid u gaar tahay muslimnimo dhab iyo maamus cadliya bulshadoo masaa ayay maragu tahay ee dhinkan May waa maalintii aan muujiyay layqiray masuul May mar labaad jaleec madaxdii jirtay maamul koonfureed murugana siyaad markay ugu badnayd May bay ahayd markay wada hadleen mingistiya isagu macshar wuxuu ka yiri muruq iyo awood imuqooniso ay ugu maraan miyay leeyihiin maya baa leeyay mar haddaan ka raray halkay maxastu tiil ragoodii marsaday maxay sheegayaan yay maagi karaa midigtiisa oo midmid loo galiyo magan buu fishaye maarihii indhaha lagu muudsadiyo wixii May qabsaday meesha soo madhigan kul Mareykan aad Liibiya marqabay madaxdii Carbeed maalmo hoos galgalay mariyo xooristii Yurub mood miciin midba wuxuu ka helay soo macaajile muusano bulshada bariya kula dhexmeer kuman maytiyo malagoodu galayana soo maqi oo miyay soo noqdeen soo lama mirtirin meeqa sarkaal madax lagaga dilay imisa nin mudan maalmahaad ku gigay ragu moodi jiray masaayib dadcuna maydku diyaal mucjisiya la yaab mahadooyinka markan koonfur baday May bay maantiya dantii maqal koonfuray isuge midka kaama maaraniyo marmarsinyahaad maalmaha wada waa aan mar kale ku muhoombiye marmarsinyaha cidaad marin lahayd runka moodileed way mootan ragal maanta kacay ee miigan iyo madfaci ogaa mari maysatani waana maan baray iyo maan bilaal mid aan suurta galin macnaha wada mayse maalin wacan ka mudxsado dhulkii wal mulkiye madax qaaliyo nagu maamushiya calan
muujinaye muqdishay walaal kaa maaranaya meeshaada joog ama nagu masayr nagu noqo makhluuq meeshaan tagnaba mawdaa ka hay muraaraadilaac qarax sida masfaca wuxuu mawla qoray lama maanacee muqdishay walaal kaa maaranaya meeshaada joog wanka macashal iyo mushtar diranaya badan maalka weyn miida dawsanna midha beerana macdan guranaya geeli miyiga iska maalaya allah ma haddalee muqdishay walaal intaan kaa maqnayn mabsuud baanu ne meeshaada joog muxog beerashi iyo muuski iyo cambi moofa iyo macsara meeqaad rabtaa waan ka maaranaye muqdishay walaal meeshaada joog wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan farxadda mayda aawadeed maxamedow aan jecelahay inaan raacsado gabay kale oo isna ku saabsan calanka iyo ictiraafka oo magaciisa la yidhaaho ictiraaf allah ku haya bismillahi raxmaan raxiim wuxuu yidhi hal-abuurka maanso iyo tix iyo heella iyo jiifto waa hadiyad uu eebbahay qof ugu hiishaaye hanti iyo waxaan xoola jarin hiba-a weeyaane higaad iyo iskuul lagu bartana horeba loo waa col wuu horin og yahay nabadna waa lagu horseedaaye hayaay iyo mar buu muusannow habarwac keenaaye hubka dhigisna wuu yahay dilkaa lagu hagoogtaa hirtaanya raagtay iyo mar buu godob hujuumaaye hengef iyo wuxuu baajiyaa halis colaadeed mar buu hiiftan iyo cayihi iyo hebel cambaareeye marna hanad waxtaray baa ammaan loogu hidiyaaye habaarkiisu waa kow ducana hore ka aamiine qof waliba halkuu doonayuu kaga hagaagaya anna belo hargaha uma tumiyo hediya laayaane himilada shacbiga meelsan baan ugu hagaajaaye maantana halkay taagan tahay balankaha saaw calankan habeen iyo dharaar hadhimada u daayey calankan haraadkiiyo u maray hawkarkiiyo oonka calankan u haajiray axmaar hoosta uga ruubtay calankii haween iyo carruur milicdu noo haysay calankii haliyey waxaan lahaa iilka ugu hoyday badhna hanaqu inta uu u go'ay humbi soconayso dawladiga hub badan calankii aan uga hakoon waayey isaguna hargaysay lahaa ee hibasha ooyayey iyo xamar hannaankay wadda waaba kala haab iyo xamar hannaankay wadda waaba kala haabe markii aa hesheen kuwii lahaa caraha haystaan bal kuwii idin hoggaanbaray misena heriya idin saaray habeen seexan waa iyo kuwii helayay kiiskiinna halka galay kuwii seexin jiray hebel kastoo dhiiran ee laga habraday aan indhaha cidi ku haynaynin soo idinkaa habkii ay rabeen hore u sii qaaday soo idinkaa raggaa waan hirreeye helinu soo jeexay soo idinkaa wax lama huuriye eh kala haddaaraya umushii markuu nabarku helay dhaarkaa hagaf siisay inaanan ina ragow kula hadlayn hoyna kula seexan habeenkay ladnaatana sidii hebad u sheekaysay ma habkeedii baan nahay yadaan hiban xanuunkiiy ma habkeedii baan nahay yadaan hiban xanuunkiiyo hitler iyo yuhuudtii u baday igaga hiir weyne wax kastoo i hela kuwan ogaa uma hiloobayo ciidaydan hodanka a mar kale layga hiri maayo haddaan kala horboobo iyo haddaan kala yar haanfiiro anaa kala hambaysane qof kale hooy i odhan maayo iyagoo halkaa i fadhiya oo haybadii iyo muuqle hablahayga iyo hooyadood hoo ku rari maayo lugta fidi haddee iyo kacaan hooy u gelin maayo war anugu aan ishaystee nin kale ii hanjabi maayo hubka si aa iskaga celin kartaan hororkan kuu ooman waa hadafkan somalilan aad hirgelisaane danteennaynu haa wadanidhaa hagarla'aaneede iyo howlgalkeeda oo midnimo lagu habeeyaaye haghag iyo khilaafkeennu waa hawsha loo wada ee ictiraaf allah ku hayee ku haladagtaada afartaa haadhi gabayga iyo calanka heestii dheh taariikh horaan soo mariyo haatan iyo guuldheh hambalyada dalkeenna hirgale hadiyadiisii dhih intaa waan habeeyey ee haddaan hore u sii daayo dadweynahan habowga ah haddaan hadal yar weydiiyo haddii aan lahaananayn dhulkii holaca loo jiiday oo xamartii shalay haysay uun hool la odhanayo halgankii iyo dagaalkii maxaa loo hirgelinayay hantideenna iyo maal wixii naga hurinshoobay ardayda iyagoo aan hubsidin helayey beebeegu hurinhurintii kaaruhu jaray uu hilib ka yeelayey hoobiyaha madfaca b m kii ina hadhaynayey hooyadii jantaa lala dhiciyo hareeraftii suuga habaas dhaxana iyo hoyla'aan halistii aan gaadhnay waargeljirii maxaa loo haligay halaha maalayey mise xaydhaweyntii dab huray hamisku siinaysay heddu ay u geysaan wax kale uga hagaagaynin ma habkeedii baan nahay yadaan wax uga hoosaynin saddex se idin hodaaye saddex idin hodaayaan shacbiga soo hordhigayaae ubadkiisu nimu hoolan jiro oo haysta tigidhkiisa iyo qaar hunguri qaaday oo hilib yar loo tuuray iyo qaar hungoobay oo iyana jagaahinaasoobay saddexdaa habaariyay wax daran kuu hadoodiline hanti kugu furfure iyo qabiil soo huwadaaba hilibkiinna nimankii bartay soo horkacayaane shalay kuwan hor tegey aan walaal hagar la moodayey iyaguna halbowlaha i jaray ee heray boqontayda imakana ihoo waa adiya habacsanaantaa dheh hitler iyo yuhuudtii u baday igaga hiiri weyne wax kastoo i hela kuwan ogaa uma hiloobayo ciidaydan hodankaa mar kale layga hiri maayo haddaan kala horboobo iyo haddaan kala yar haanfiiro anaa kala hambaysane qof kale hoy i odhan maayo iyagoo halkaa ii fadhiya oo haybadii iyo muuqle hablahayga iyo hooyadood hoo ku rari maayo lugta fidi haddee iyo kacaan hooy u gelin maayo war anugu aan ishayste eh nin kale ii hanjabi maayo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waayahay kaasi waxa uu ahaa axmed maxamed nuur abwaan dhako oo idinla socodsiinayay maansooyinkaasi qiimaha badan ee ku salaysnaa sidii loo soo maray dalkeena hooyo ee somalilan waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed siciid gaxnoogtan iyo intaan dib u kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu